Turkigu waxa uu sameeyay maalgashi weyn oo uu ku kordhinayo difaaciisa badda 10 sano ee la soo dhaafay isaga oo kordhiyay tirada maraakiibta dagaalka iyo kuwa militariga waliba waxa tallaabooyinkan uu qaaday isagoo ku tiirsan tiknoolajiyada dalkiisa dalka Turkiga oo ah mid u dhaxeeya Yurub iyo Asia isla markaana xuduud la leh 3 badood oo ka kala kulaala jihooyinka waqooyi galbeed iyo koonfureed ayaa dadaal badan u galay sanadihii u dambeeyay sidii uu ciidamadiisa badda u gaarsiin lahaa heer uu kula loolamo quwadaha adduunka sanadihii la soo dhaafay Ankara kaliya ma kordhinin tirada maraakiibta dagaalka ilaalinta xeebaheeda iyo ka sharaacashada biyaha caalamiga ah laakiin waxay sidoo kale mudnaan siisay isku filnaanta si loo tayeeyo ciidamadeeda badda iyada oo ku tiirsan kheyraadkeeda si ay u yareeso ku tiirsanaanteeda dibadda inkasta oo muddo dheer la kobcinayay rabitaanka ah in Turkiga uu noqdo mid aan ku tiirsanayn hubka shisheeye iyo tiknoolajiyada la soo waarido madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan dawladdiisu waxay si aad u kordhisay qarashka difaaca waxayna si taxadar leh uga shaqaysay si kor loogu qaado iskaashiga dawladda ee qandaraaslayaasha difaaca laga soo bilaabo 2007 qarashka Turkiga ee cilmi baarista iyo horumarinta ayaa si aad u kordhay isaga oo ka saddex jibaarmay heerarkii hore sida lagu sheegay sahan ay sameeyeen koox hormuud u ah warshadaha difaaca sanadkii hore oo kaliya waxay dhaaftay 1.3 bilyan oo dollar qarashka lagu bixiyay qaybtaasi sida sahanku bidhaamiyay ciidamada badda ee Turkiga ayaa ilaa iyo hadda waxay haystaan in ka badan 110 markab oo military balse Ankara waxay qorsheynaysaa in ay tiradaas ku darto 20 ka badan markabka udubka u ah awoodeeda badeed waa TCG Anadolu waxa uu ku jiraa boos gaar ah sababtoo ah markabka dagaalka waa kiisii ugu horeeyay ee xambaara diyaaradaha fudud ee Turkigu sameeyo taasoo Ankara awood u siisay inay ku biirto naadiga wadamada leh maraakiibta diyaaradaha xambaara Anadolu waa markabka dagaal ee ugu weyn Turkiga tan iyo TCG Yavuz oo hore u ahaan jiray mid Jarmal ah oo qaab cajiib ah loo gidaar sameeyay sanadkii 1914 markabka Anadolu waxa uu ciidanka badda siinaya awood weerar oo aan nooceeda hore loo arag taasoo ku wajahan badda madow iyo bariga badda Mediterranean sida ay ku doodayaan khubarada markabka Anadolu TCG oo ah mid dagaal oo ay dhismihiisa iska kaashadeen shirkado ay ku jiraan mid Spanish ah oo lagu magacaabo Navantia iyo shirkada laga leeyahay wadanka Turkiga oo la yiraahdo Sedef Shipbuilding Inc ayaa muujinaya hamiga wadanku ka leeyahay inuu noqdo quwad awood weyn ku leh badda Mediterranean-ka sida boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo ah dawladdii wadankaas ka talin jirtay haddaba waa maxay sababta Turkigu uu wax badan u maalgelinayo ciidamadiisa badda Turkigu waxa uu doonayaa in uu la tartamo dariskiisa Mediterranean-ka si siman uu u helo xuquuqdiisa badda ee gobolka isaga oo horumarinaya awoodiisa badeed kuwaas oo sidoo kalena muhiim u ah ilaalinta danaha dhaqaale ee aasaasiga u ah dalkiisa iyada oo in ka badan 87% ganacsiga wadanka lagu sameeyo dekadaha iyo tiro kamid ah dhuumaha kumeel gaarka ah ee soo mara dhulbadeedka Turkiga awoodda ciidamada badda ee wadanku waxay si aad ah ula soo shacbaxday fikradda Turkiga ee casriga ah sida ay ku doodayaan khubaradu sidaas darteed Turkigu waxa uu dhawaan iibsaday 2 markab oo sahamin ah oo kala ah Fatih iyo Yavuz si ay ula tartamaan kooxaha ka soo horjeeda ee gobolka isla markaana ay sare ugu qaadaan tiknoolajiyada badda ee dhinaca gaaska iyo dadaalada kale ee saaminta badda ee bariga Mediterranean-ka halkaas oo dhawaan laga helay kayd gaas oo qani ah rabitaan ku aadan sheegashada gaaska dabiiciga ah ee xeebaha Qubrus ayaa si gaar ah u kiciyay dareenka siyaasiyiinta Ankara bilowga hawlaha qoditaanka Turkiga iyo sidoo kale qorshayaasha xanta ah ee lagu dhisayo saldhigga cusub ee ciidamada badda Turkiga ee waqooyiga Qubrus ayaa kamid ah calaamadihii ugu dambeeyay ee qorshayaashu ay doonayaan inay saameyn weyn ku yeeshaan bariga Mediterranean-ka Ankara waxay dhawaan la saxiixatay heshiis badeed oo muhiim ah oo qaramada midoobayna aqoonsan tahay dawladda kumeel gaarka ah ee Liibiya taasoo muujinaysa awoodeeda Mediterranean-ka marka laga soo tago badda Mediterranean-ka iyo biyaha kale ee qaranka Turkigu waxa uu sidoo kale ballaariyay joogitaankiisa badda isaga oo ciidamadiisa geeyay dalal fogfog laga soo bilaabo Suudaan Qatar ilaa Soomaaliya sidoo kalena waxa uu soo gaaray meelo kamid ah badweynta Hindiya ilaa badda Cas iyo gacanka Khaliijka warbixinteennii aan ku guud maraynay quwadda badeed ee wadanka Turkiga intaas ayaan ku hakinaynaa waa Abubakar Maxamed oo idin leh waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin ha moogaanina inaad ka mid noqotaan saaxiibada Tifaftid Media nabad iyo warsan